sicir barar baahsan ayaa ka jira guud ahaan Somaliland iyadoo maalinba maalinta ka dambaysa uu cirka isku sii shareerayo qiimaha qowtal daruuriga asaasiga ah sida biyaha, leydhka, maciishada iyo shidaalka. waa duniyay danyartiyo agoontii inta la iska dacal maray xaqoodii la duudsiyay inta la iska dacal maray xaqoodii la duudsiyay. sare u kacan baahsan ayay dareemayaan bulshada magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer iyadoo ay ugu sii daran yihiin dadka danyarta ahi. qiimaha shidaalka lagu kala iibsanayo magaalada Burco ayaa saaka maraya 10 litir 120,000 oo shilinka Somaliland ah iyagoo sheegay inay tahay labalaabka qiimihii hore ee lagu kala iibsan jiray shidaalka. dhawaaqa bulshada ee taagan maalin walba ayayna waxba iska bedelin ilaa haatan iyagoo cabashooyin isdaba joog u diraya xukuumadda Somaliland. والله مشكلة وين بودن كتاجنا وحالة وحي مرسى ميل وهذاك بمرسى إن هدي معاشة تهاي يا هدي شيء ذلك تهاي يا هدي قوتل ضروري كراء ودن كالاستعمال يا تهاي بها مركها آديات بنا والله وحنا مرحلة ودن كتاجيمك إن كارهان جديد كشيء ذلك وحو كردي مرحلة كسر رئيسة بقول كسر رئيسه كردي إمك وحي تاجن تهاي هيركي أما الله يسكدي لها دي أما كلمة الشيء ذلك أي حيان لا يالن لها يدتكو أي جماعة ولا تجي لهايل maadaama oo dawladdu wax ka qaban laadahay waxa shurdaafa shidaalkii aan loo sameeynin ganacsatadii wadankii ay xurta iskaga haysato sidoo kalena shidaalkii sida shirkadaha traafigura iyo uu kooto ugu xiran yahay oo aanu jirin competition naga jabin kara shidaalka oo aanu bulshadu ku baxsan karto marka waxaanu dawladda ugu baaqaynaa dadku waxay isugu imanayaan wixii la hayo hadii aan sixir bararka noocan laga jabin danyartuna meesha way ka baxaysaa wasiirka ganacsigana gaar baan u cambaaraynayo ganacsigii meesha uu maraya maanta wayna ognahay haday shidaal tahay iyo haday maciisho tahayba kiin sixir bararka Somaliland ka jira waa mid masiibo ah oo dhigbax laakiin waxaan u sababaynaa shidaalka qaaliga xukuumadda maanta jirta wasiirka ganacsiga iyo shidaalkii oo cid gaar ah ay miisayso gabigeeduba hal jeeb ka baxaya dhibaatada meesha ka jirtaana waxa weeye shidaalkii oo lagu wareejiyay dad gaar ah oo ummadii ka ganacsanaya dhiigoodii saddexda xusbi qaran ee is haysta ee iyagu kursiga isku eriyanaya iyo dadka baahida iyo shidaal la'aanta iyo maciishad xumada u dhimanaya ee hadhowna codka loo soo doonanayo baaqiga hadha dadku way arkaan waxaan u leenahay xukuumadda iyo madaxda qaranka war ilaahay ka baqa dadkan aakhire ilaahay idinku idin weydiinaya haddii ay tahay xusbi iyo hadday tahay xukuumad talada haysa war dadkani gurbad maanta u baahan yihiin la isku dul qabsado la yiraahdo maanta reer hebel baa ula iyo xusbi waa la furaya iyo la furi maayo dadka lagu dul ololeeyo iyadoo dhiigoodii soconayo oo shidaalkii iyo maciishadii war kiishkii dhuxushaaba 150 maraya dawladda iyo musabixi dadkan u soo jeesto oo waxa ka qabto inta golaha ku jeedaan iyagu qabsanayaan dadkooda masaakiinta afarta saac guriyaha ku dulman dooxyada ku dulman xabaglayaasha wax kasta كي حنوصلنا كي دمرك واحد قاعد هلا قبض ما لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا كينا وين يا كينا ير هدوسن كينا وين كير دوسن احترامين كيرنا دوسن كينا وين احترامين ومدي النبي محمد كمين معها والله أنا قهرت السحر برك ما تضدك كعبنا أنا قهران وأركيه وربي هيستاريك لكن دولتي وح الله لو شعب كفايدة المشيران أنا سحر برك يهدي بد ما هي بمحاها قالي يهدي بد ما هي وح الله للشعب كفايدة ما جرته marka dowrkii dawladda meesha ka maqan markaan waxaan kula tan la dawladdu shidaalka ka keento oo anaga qabatay nimankan ma garanayay bidhig miiratada ah anu hadeer meherad baan haystaa alaabta meherada ii taala dhamaantii dibadda laga keenaa dibadda marka laga keeno dibadda dadka laga soo iibiyaa ganacsatada way soo iibsataa ganacsatadana waxaan loo eedayn karin maanta waa wada baamistarku waa xor buu madaxweynuhu xor buu sheegay xorriyadu waxay keenaysaa inuu qof waliba keeni karo wixii uu waxa ka helayo marka tartan baa jira ganacsatadu waxay kicin kartaa ma jirtaba niyow horta annagoo sixir bar aad iyo aad la dalaadhacaynay ayaa maantana shidaalkii aad iyo aad naloo ku dalacsiiyo 12 litirkii maraya waxaanu qaadnaa waa dadka shicibka baan u shaqaynaa 2 baan gurnaa waxaan annagu tiglayaasha kaliya aan cidna waxba ku dalacin marka aad iyo aad waxaan ugu baaqanaa xukuumadda Somaliland iyo cid walba ay khusayso
dee shidaalkana laga jabiyo iyo maciishada aad iyo aad u kacday oo dee annagana na saamaysana soo gaadhay shidaalka horta hadal ma jiro ayaan waxaan ka baqayaa ayaan doo la boobay dadka inaan dadka boobno baa hadhayba maciishadana ayaan waxaan noqonaysaa in qori shubka bariiska reerkii qori ku ilaashado waayo ummadan iyo dadkan in la socon baa hadhay ayaan ku waxay leeyihiin leerka waqtiyeena anu waxaan jecelahay in leerka waqtiyaanba waayo nimanka ummadda shaqay baan boobeynaaba wallahi waa ku xoognaa ayaan dhow haddii si waxaan ka daweyn waayaan iminka dee baabuurtii meel bay iska wada taagantii 120 shidaal kuma heli mayso 120kii wuxuu koonay macmiil baan u hayaa kaanta wuxuu koonaysan intaan igay shidaal macmiil baan u hayaa koonaya kugu shubi maayo iminka 5 litir baan ku soo shubtay waxa laga siiyay 45 markii hore waxa naga qaadi jiray 230 walaana aad iyo aad u shidaalku ka markaas xir bararkaasi meel meel naga saameeyay garan mayna mucaashada shidaalka dawladda kana abaari wax uu ka jiraan Cabdirashiid Timir maqal muuqa caalamiga ah ee Home Cable TV Burco